السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كني سويال يومانتا يا عبد الرشيد قال له سويال كوكما تاغو تاريخ سوغانو سعاد وحقوقها صحيو غلط وحيد عين markale maalin wanaagsan waa barnaamijkeena Sooyaal oo maanta ka hadli doono Raila Odinga oo isagu maanta hadlay kadib doorashadii shalay looga dhawaaqay dalka Kenya oo ku guuleystay William Ruto. haddaba hogaamiyaha Azimo mucaaradka Raila Odinga ayaa maanta waxa uu ka hadlay arrimihii doorashooyinka iyo ku dhawaaqistoodii iyo natiijada ka soo baxday sida uu arko iyo talaabada xigta ee uu qaadayo. waxaana uu warbixinayo shir jaraa'id oo qabtayba kaga sheegay inaanu aqbalsanayn go'aanka ay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Kenya qaybtooda ay kaga dhawaaqeen xarunta doorashooyinka ee dalka Kenya. haddaba isagoo hadlaya ayaa hadaladiisii waxa uu yidhi maanta waxaan rabnaa inaan walaalaha iyaga reer Kenya ee beesha caalamka kala hadlo doorashadii 2022 ee Kenya iyo doorka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee loo yaqaano IEBC oo ah hay'adda u xilsaaran arrimaha ku saabsan doorashooyinka ee qabashadooda iyo maareynta arrimaha doorashooyinka. Agost 9 2022 malaayiin Kenyaan ayaa isugu soo baxay tiro aad u badan ayay ahaayeen iyagoo isku dayay inay doortaan hogaamiyahooda heer qaran, heer degmo iyo heer deegaan kadib olole nabadeed oo dheer iyo guud ahaan arrimaha doorashada oo dhanba. laakiin shalayto Agost 15 dimuqraadiyaddii curdinka ahayd waxay la kulantay dib u dhac weyn. taasi waxay keentay in Kenya ay wajahdo qalalaase sharci iyo mid siyaasadeed oo aad u daran taasoo ka dhalatay falkii Mr. Wafula Chebukati oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. dastuurka iyo sharciyadeenu way cad yihiin sida ay kooxda IEBC uu hawlihiisa u qabto. ma jiro door ka muhiimsan ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka aan ahayn habdhaqanka gudbinta iyo tirinta doorashooyinka madaxweynaha. waxaa si xanuun badan uga warqabnaa eexdii siyaasadeed ee hore ee ay guddigaasi dalkan u gelisay boggii ugu madoobaa. xusuusi faasha xumeyd ee doorashadii 2007 kadib ayaa maskaxdeena ku jirta. sanadkii 2017 maxkamadda sare ee Kenya ayaa mar kale baabi'isay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya sababtoo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo si qaldan u dhaqmay. wixii aan shalay aragnay waxay ahayd gef iyo xaqiraad qaawan oo ka dhana dastuurka iyo shuruucda Kenya. Mr. Chebukati iyo tiro laga tiro badan yahay ee ka tirsan guddigaasi. sharcigu waa cad yahay doorka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku. sharcigu ma siinayo gudoomiyaha awoodaha kaliya taliye inuu si kaliya u xukumo guddigaasi. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxaa loo qaabiyey sidii hay'ad dimuqraadi ah oo ay tahay inay go'aanada lagu gaaro heshiis ama cod aqlabiyada. gudoomiyaha iyo tiro yar oo ka mid ah komishinka ma laha awood sharci oo ay ku qaataan go'aamo culus oo ay uga dhawaaqayaan inay yihiin ama iyagu ay yihiin kuwa ku dhawaaqaya xukunada guddiga doorashooyinka. sharciga guddiga doorashooyinka wuxuu dhigayaa haddii aan la gaarin go'aan aan mid ahayn ama go'aan wada jira aan lagu gaarin go'aan loo arko dhinac kasta oo komishinka ka hor imanaya ma ay qabanayaan. haddaba Raila Odinga waxa uu ku soo gabagabeynayaa qoraalkiisa iyo shirkiisa jaraa'idba inaanu aqbalsanayn cidda iyagu u xilsaaran inay arrimahan ay qabatana ay tahay maxkamadda sare oo ay dacwad u gudbinayaan. wuxuu sheegay waxaan fahansanahay in komishinku ay hore isugu raaceen tirinta natiijada madaxweynaha laakiin wax yar ka hor 2 saacadood ka hor inta aanu ku dhawaaqin Mr. Chebukati waxa uu ku baaqay kulan ay isugu yimaadaan guddiga doorashooyinka. waxaana uu daa ka qaaday natiijooyin kala duwan oo uu inuu ku dhawaaqayo. 4 ka mid ah 7 qof ayaa ka dhiidhiyay falkii Mr. Chebukati laakiin Mr. Chebukati oo ay maskaxdiisa u muuqatay mid maangal ah kama aanay yeelin wax dood ah oo ku saabsan natiijada taasoo soo dedisay in inta badan xubnaha komishinku ay diidaan. waxaana ku sheegay Mr. Odinga
arrimahaasi waxba inaana ka jirin oo uusan aqbalsanayn. xisaabtan la'aan waxa ay khatar ku noqon kartaa buu yidhi amniga dalkeenna. annaga naguma taalo inaan go'aan ka gaarno in Mr. Chebukati uu galay dembi. go'aankaas waxaan u daynaynaa hay-adaha ku shaqada leh. si looga fogaado shakiga waxaan rabnaa inaanu ku celiyo inaan gebi ahaanba aan isqabqabsi diidno natiijada madaxtinimada ee uu shalay ku dhawaaqay Mr. Chebukati. waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo taageerayaashiinu inay istijiyaan oo ay nabadda ilaaliyaan. taas oo muuqata in uusan aqbalin go'aankii doorashada isla mar ahaantaana uu diidan yahay. waxaana uu eedda dusha uga tuuray guddiga doorashooyinka uu sheegay inay dalka qalalaasi gelinayaan. haddaba arrimahaasi waxa ay u muuqdaan weli inaan lagu kala bixin doorashada dalka Kenya. waxaana ay taasi sahlaysaa in madaxweynaha hadda xilka uu kasii dhammaanayo Uhuru Kenyatta inuu kursiga kusii fadhiyo xataa haddii waqtigiisii uu dhammaado. waxaana dhici karta in isjiidkani uu sii socdo ilaa inta maxkamaddu ay go'aan ka gaari karto. waxaase la isweydiinayaa sida uga faa'iiday 2017 inkastoo uusan ku guuleysan oo uu marlabaadkii dib loogu noqday doorashadii ku guuleystay madaxweynaha talada hadda haya ee Uhuru Kenyatta, in Raila Odinga uu ku guuleysan doono in maxkamadda sare ay natiijada doorashadana ay tiraahdo waxba kama jiraan. aad baad u mahadsantihiin barnaamijkeena Soomaaliya maanta iyo Cabdirashiid Geelle Cumar oo idin leh isma dhaafno.